habeenkii xalay ahaa waxaa dekada berbera laga raray 3,400 oo geela dhoofka xoolaha ayaana xidhnaa 4 sano ee la soo dhaafay xoolahan ayaa loo iibgeynaya wadanka Masar oo inta badan geela ka iibsada ganacsatada Soomaaliland dekada magaalada berbera ayaa si weyn u qalabaysan oo shaqadeedu tahay mid 24 saacadoodba lagu guda jiro waxaana kor u qaaday adeegga ay bixin jirtay dejinta iyo raridda mariyaha guud ee dekadaha Soomaaliland Saciid Xasan Cabdilaahi ayaan ugu horeyn ka waramay xoolahan oo noqonaya kuwii ugu horeeyay habeenkii xalay ahaa ka dhoofay dekada magaalada berbera tan iyo intii xoolaha xayraada laga qaaday waxaan dhoofinaynaa geeli ugu faraha badnaa insha Allah ee dekada ka baxa sida tiradiisaba hore loo sheegay taasoo runtii aanu fulinayno siyaasadda madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wasaaradda xanaanada xoolaha annaguna aanu qabanayno service-kii caadiga ahaa ee dekada oo aanu mar walba diyaar u nahay 24 saacadoodba inaanu hawl maalmeedkii caadiga ahaa gudanno awoodna aanu leenahay xoolaha ugu badan inaanu ka dhoofin karno dekada berbera mankaaniyaadkeeda iyo qalabkeeda inaanu haysano taasina waxay tusaysaa caawa in geela oo ah xoolaha ugu adag ee la saaro maraakiibta inaanu sida ugu dhaqsaha badan u saarayna alxamdulillahi rabbil caalamiin laba habeen buu marayaa xalay 700 baa la saaray caawna waxa la saarayaa 2,721 haddii alla yidhaa waxaan aad ugu hambaleynayaa xukuumadda madaxweyne muuse biixi cabdi suuqyada cusub ay u raadinaysa mar walba ganacsatada Soomaaliland oo aynaan ugu koobnayn suuq u dhah jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu caawa ka rabnaa geeli ugu badnaa oo ah 3,400 baan ka rabnaa caawa oo ilaa xalaan ku jirnaa hawshiisa aad iyo aad baan safety-giisa u ilaalinaynaa oo xoolaha uga shaqeynaa dekada berbera aanay dhibaali ku keenin sidaa daraadeed waxaanu caawaanu awrkii aan ku rareynay geela oo geelna waana talaalayahay talaal loo qabaa waxaanu u gooshay u tagayaa Masar buu tagayaa waxa sidaa daraadeed aan ku sheegaya geela caafimaadkiisa waa la hubaa xubno ka mid ah saraakiisha dekada weyn ee magaalada berbera ayaa iyaguna dhankooda si weyn u soo dhaweeyay oo u dhoofaya Masar alxamdulilaahi rabbil caalamiin xilli lagu jiro Ramadaan xilli ay jirto cabsi weyn oo xanuuno iyo wax laga baqanayo cabsi waxaanu ka qabnay markii hore in ay yaraan doonaan dhaqdhaqaaqa gaadiidka laakiin ilaahay mahadii way sii kordheen xoolaha iyo suuqa cusub ee uu soo furnay geela dalka Masar suuqaas oo soo furnay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana lagu sii rajeynaa insha Allah in suuqa badan oo kale oo Sacuudiga iyo meelo kale badan oo xoolaha aanu dhoofin hawshaan u kala duwan insha Allah ayaanu ku shaqaynaynaa iyadoo aanu maamiirtiisa aad u hirgelinayno intii muddadii xilka 2 sanadood hayayna horumar ballaaran uu ka sameeyay gobolkan saaxil gaar ahaan marsadan berbera xogayaha dawladda hoose ee degmada berbera Cabdikariin Aadan Cadde iyo barasaabka gobolka saaxil injineer Axmed Cismaan Xasan oo soo kormeeray xalay dekada weyn ee magaalada berbera ayaa si weyn ugu ammaanay mariyaha guudiyaha howlwadeenadiisaba sida wanaagsan ee shaqada u hayaan inoo furmay waxa filayaa bishan iyo bisha soo socotaba saasay socon doonaan maanta caawa dhowr kun oo geela la rarayaa waana fursad weyn oo ummadda Soomaaliland iyo qarankanba u soo hoyatay ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in fursadaha dhaqan-dhaqaale ee maartay iyo challenge-ka national ilaahay inoo badiyo maarayaha dekadaha Soomaaliland oo runtii ah nin firfircoon dekadana wax badan ku soo kordhiyay runtii gobolkana guud ahaan maxay tahay qaybtiisa ka qaatay waxaynu joognaa marsadii weyneed ee berbera oo caawa runtii farxad weyn ay tahay oo ay ka dhaafayaan geelii ugu badnaa oo u baxaya dalka Masar oo hadda halan ka baxayo oo 3,400 ku dhawaad tirada halkan maraysa ay tahay waxaanu filaynaa xoolihii kale insha Allah Sacuudiga inoo furayna inay maxaan ku raraa dhowr maalmood gudahood iyaguna ay ku bixi doonaan dekada saacadda aynu taagannahay oo xilli dambe maareeyaha aad ayaan ugu hambaliyeynayaa runtii sidaa hooganka ugu yahay shaqadan ballaaran ee halkan ka socota Yaasiin Jaamacali telefishinka caalamiga ah ee Bulsha TV magaalada Berbera